بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد وفديgeennii afraad ee fadhiyada uu inoogu fatwoonayo sheekheena Sheekh Maxamed Cabdi Umal fadhigeena galabta su'aasha koobaad sheekhana saa'ilku waxa uu leeyahay sheekh waa maxay xikmadda ambiyada loogu tartiibiyay toddobada samo بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم habeenkii la dheelmay oo Bayt al-Maqdis la geeyay adana kor loo sii qaaday toddobada samo korkooda la geeyay wuxuu ku sheegay socdaalkiisaas iyo safarkaas inuu ambiyadii iyo rusushii qaarba uu samo ku sii maray aadam inuu samada soo ku maray yaxya iyo ciise wahaakada ilaa uu samada ugu sarreysa uu ku sii maray abihi ibraahim su-aashu waxay tahay tartiibinta ambiyada sidaas samawaadka loogu tartiibiyey xikmadda ku jirta maxay tahay jawaabtu waxa weeye allahu aclam laana wax nasoo tilmaamaya ma jiro wax daliiloo loo hayana ma jiro xikmadda ilaahay saa ugu tartiibiyey say u kala fadli badan yihiinna ma aha lianna ululcasmiga qaar ka mid ah hooseeya qaar aan ka tirsanayn ululcasmigana way korreeyaan marka allahu aclam wixiisaa loogu tartiibiyey wadaadada qaarkood waa jiraan oo wax sheeg-sheega laakiin kama marsaladu ma dhaafsiisna inay tahay uun isku day aan daliil lahayn nacam jazaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiik saa'ilka labaad waxa uu leeyahay sheekh nin ayaa xaaskiisa ku yidhi mar kasta oo aan ku arko waad iga furan tahay arrinkaas xukunkeedu muxuu noqonayaa sheekh ninkaasi naag ma rabo kelimada kullamaa yaa macnaha wadata mar kasta kullamaa waa kelimo iska saaran kulla iyo maa markii saas oo kale labadaa kelimo isu fuulaanna waa darfu zamaan baa la yidhahdaa macno shardina way wadataayoo waxay ka mid tahay kelimaadka shardiga faa'iideeya oo hayru jaasimada ah ficilka ma jasmiso laakiin shardi bay faa'iideysaa waxay la dheer tahay xuruufta shardiga faa'iideysaa ayadu takraar bay keentaa kullamaa mar kasta haddii marka xugumka ama dalaaqa lagu xidho oo uu iyada isticmaalo macnaheedu waxa weeyaan xugumku wuu soo noqnoqonayaa mar kastoonku arko way furmi haddana marka labaad uu arko way furantay haddana marka saddexaad uu arko way furantay saddex aragti markuu arko dalqadihii waa ka dhammaadeen ninkaas ma naag burraa marka khalaas ha kala faataxaystaan naag kale ha raadsado hataa noqod male saddexdii dalqadood waa ka dhammaanaya waxaa la mida mar kastoon kula hadlo waad furan tahay marka ugu horreysa uu la hadlo dalqadii ugu horreysaa dhacaysa mar labaad hadduu la hadlana tii labaad baa dhacaysa mar saddexaad hadduu la hadlana tii saddexaad baa tegaysa marka kullamaada way ka duwan tahay idaa iyo in iyo xuruufta kale shardiga faa'iideysa dalqaduhu way dhammaanayaan mar kastoo uu wuxuu ku xidhay soo noqnoqdo nacam baaraka allahu fiik wajazaaka allahu khayran saa'ilka saddexaad waxa uu leeyahay sheekh waxaan rabnaa hooyaday oo waayeel ah inaan fidyo ka bixinno marka ma ku baxaysaa fidyadaasi carruur agooma ah oo aabbahay uu dhalay oo aan mas-uul ka nahay isla markaana ma siin karnaa sakaatulfidriga carruurtaas haddaad idinku mas-uul ka tihiin oo nafaqadoodu idin saaran tahay iyo biilkooda waajib idinku tahay cid kaloo idinka xigsatana aynan jirin
iyaguna xoolo kuwooda ayna lahayn oo nafaqadooda waajib idinku tahay sadaqa kuma baxayso laa zakaatulfitri ma siin kartaan walaa fidyatoona ma siin kartaan sababtu waxa weeye cidda nafaqadiisa iyo biilkiisa kugu waajibtay haddaad haddana sakadii siiso bimacnaa xoolahaagii aada bixin lahayd bay kuu baajinaysaa waay adiga marka isa siiyey waay yaa reerkaagii biilka kugu lahaa haddaad sakad uga dhigto adigii baa isa siiyey markaa adaa wax ku baajistay adaa wax ku reebtay marka taasaa laga cararaya sadaqada iyo sakaatulfitriga iyo sakada kale xoolaha ka waajibta iyo fidiyaduna waa sadaqaad loogu talagalay in aysan soo gelin wax xad iyo dheef uu ruuxu ka dhex raadinayo marka hadday nafaqadooda waajib idinku tahay ma siin kartaan haddayna nafaqadooda waajib idinku ahayn walaalnimadu u diidi mayso in sakaatulfitriga la siiyo ama fidyada la siiyo wallahu aclam baarak allahu fiik wajazaaka allahu khayran saa'ilka afraad waxa uu leeyahay sheekh waxaan ahay dhakhtar ka shaqeeya daaweynta iyo qurxinta ilkaha marka baryahan dambe waxaa soo batay dadka marsada dabarka ilkaha lagu caseeyo dabarku waa midab aan ilkaha ka baaba'ayn oo ilkaha cadcad la mariyo quruxna looga jeedo markaa sheekh ma xalaal baa mise waa xaaraan adduun waxaan joognaa kolba dhinac laysu wato bal ilka la caddeeyaan arki jirnay ilka hadda dabar loo samaynayo qurux laga raadinah maalinba sidaa laysu dhiga waay xadiidka nabigeenna ka sugan kamaa fi saxiix albukhaari wa muslim min xadiidi cabdillahi bn mascuud nebigu wuxuu lacnaday kuwa jidhka midabkiisii midab aan ahayn ku tallaala iyo kuwa u samaynaya alwaashimaad waalmustawshimaad waxaa kaloo uu lacnaday kuwa xawaajibta jidh muxuu ahaayey timaha ka koreeya indhaha iyagana qoraya ta samaynaysa iyo ta loo samaynaya waxaa kaloo uu nebigu lacnaday sal alla alayh wasalam kuwa ilkaha qoraya ee fanaxda samaysanaya almutafallijaat lilxusni kuwa ilkaha qoraya fanaxda u samaynaya si ay u kala fogaadaan ilkuhu ayagoo qurux ka raadinaya almughayiraati khalqa allahi buu nebigu sal lla alay slam ilaahay abuurkiisa beddelaya cabdillahi bn mascuud markuu saddexdaaba lacnaday islaam baa u timid umu qays la yidhaah waxay ku tidhi cabdullaahi ow waxa ay soo gaadhay inaad dadka noocaas lacnadayso maxay tahay xaggeed ka keentay ku tidhi markaasuu wuxuu ku yidhi oo see baana u lacnadaynin cid rasuulka ilaahay lacnaday kitaabka ilaahayna ku taalla markaasaa waxay tidhi kitaabka ilaahay fiidda laga bilaabay ilaa dhanka kale waan akhriyay bay tihi kumana arkin xagee ku taallaa markaasuu wuxuu ku yidhi haddaad akhriday kitaabka ilaahay way ku taallaa ma akhriday buu yidhi wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu soo aayad qur-aana ma aha waan akhriyay bay tihi wuxuu rasuulka idin yimaado qaata wuxuu idinka reebana ka reebtooma soomaad akhriyin haa haddaba nebigu wuu reebay bay uu yidhi wuu lacnaday markaasaa intii mayna kaga hadhay waxay ku tidhi oo xaaskaagaaba samaysee gurigaagaaba laga sameeyaaba markaasuu ku yidhi kac tagoo soo fiiri way tagtay xaaskiisiibay u tagtay zaynab markay u tagtay bay wixii ay sheegaysay ka weyday waxay ku tidhi maya waxba ma soo arkin wuxuu ku yidhi hadday samayn lahayd gogolla lama seexdeen xaasna mayna ii noqoteen buuhi marka almutafallijaat lilxusni dumarka ilkaha qora ee quruxda raadinaya almughayiraati khalqa allah waa cilladii waaye maxaa loo diiday abuurka ilaahay bay beddelayaan horey baa waxaan u sheegnay waxaa loo yaqaano aljiraaxaat tajmiiliya ama jidhka in la qurqurxiyo asalkiisu waa xaaraam waxaa kala duwan jidhka ceeb ku soo korodhay in laga zuuliyo iyo abuurkiisii ilaahay ku abuuray sawiga ahayee sinnaa in inta laga bedelo qurux la raadiyo taa dambe waa xaaraam waana taqyiir khalqi illaah
waxaana amarkaa bixinaya ibliis wala aamurannahum fala yugayirunna khalqa allah somuusan dhihin yani amaamiirta uu bixiyo ibliis ee dadka siiya waxaa ka mida inay abuurka ilaahay bedelaan marka arrintaasi waa khalad ilkihii caddaa ee quruxsanaa in midab kaleeto loo sameeyo dabar loo sameeyo quruxna laga raadiyo arrintaasi waxa weeye waa xaaraan qaطci ah mana bannaana dhakhtarka samaynayana xaaraan buu samaynaya lacnaduu soo gelaya laanna nebigu wuxuu lacnaday kuwa loo samaynaya iyo ka samaynaya xoolaha hadday kaa soo galaanna waa xaaraan qaطci ah wallahu aclam jazaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa-iilka shanaad waxa uu leeyahay sheekh iyadoo bil ramadaan ay tahay cunto ma siin karaa qof aan muslim ahayn masaladaasi waa masalo ku salaysan asal la isku khilaafsan yahay oo ah hal ilkufaaru mukhaatabuuna bifuruuci shariica waxaa la isku waafaqsan yahay gaalada in ilaahay kula hadlay inay islaamaan oo ay diinta soo galaan laakiin haddayna diinta soo gelinoo bannaanka ka joogaan furuucda shareecada sida salaadoo kale soonkoo kale xajkoo kale ayaga ma lagula hadlay oo matalan waxa weeye gaalku hadduusan ramadaan soomin soon la-aantaasi dembi gooniya miyaa looga qorayaa hadduu xoolo leeyaho on soo xajiinin dembi gooniya miyaa loo qorayaa hadduusan tukanin salaad la-aantaasi dembi gooniya miyaa looga qorayaa mise maadaama uuba islaamba ahaynba islaamnimadiiba ka maqan yahan waxyaabahan kale yani waxba looga qori maayo oo dembi gooniya looga qori maayo masaladaas ayaa waxay tahay masalada ay ku salaysan tahay gaalada aan ramadaan joogteen soomanayn cunto ma la siin karaa qaacidadaasina waa qaacido mukhtalafun fiiha jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan culimmada badankood waxay qabaan alkufaaru mukhaatabuuna bifuruuci shariica gaaladu sida looga rabo asalka towxiidka ayaa furuucda shareecadana looga rabaa wabittaali salaaday ka tegayaan salaad kasta dembi baa loo qori soon kastay ka tagaan dembi baa loo qori beenta ay sameeyaan dembi baa loo qori zine kasta hadday galaan dembi baa loo qori haddii ay sidaa noqoto marka oo sida culimmadu u badan yihiina gaalkan soon la-aanta dembi buu ku jiraa soo maa hadduu dembi ku jirana ruux caasi oo dembi ku jiraad adiguna u kaalmaysood cunto siisay halkaasaa marka culimmadu waxay leeyihiin waa xaaraan marka in cunta la siiyo waa qolada say u badan yihiin halkaasay marayaan saas daraaddeed culimmada mucaasiriinta waxay leeyihiin markay masalada saa u taqriiriyaan kadib waxay leeyihiin hadday ama guryaha joogaan ama meelaha jooga iyagu ha karsadaan iyagu ha diyaarsadaan adiga ha ku kaalmayn ra'yigaasi waa ra'yiga loo badan yahay ra'yi kaloo waxaa jira culimmada qaarkood ay qabaan oo dhahaya gaalada maadaama asalkii towxiidkaba ayna soo gelin oo diinta soo gelin salaadna lagulama hadlin soonna lagumala hadlin wax gooniya oo dheeraadoo looga qorayana ma jirto wabittaali kii ramadaan joogay ee gaalka ahaa ee aan soomanayn cunto waa la siin karaa maxaa yili soon la-aantiisani dembi gooniya ma aha isaga kuma ah halkaana qolaa maraysa qolada hore lafteedu mar kale issii khilaafi doonaa waxay leeyihiin mukhaatabuuna bifuruuc shariica ma aakhare keliya laga wadaa mise adduunka almuhim alimaamu ramli fii kitaabihi nihaayat lmuxtaaj fuqahadii shaaficiyadu ka mid a mutaakhiriinta ahaa wuxuu soo guurinayaa culimmada ka soo guurinayaa inay yidhaahdeen waa xaaraan gaalka in maalin ramadaan cunto la siiyo alimaamu ramli fii nihaayat lmuxtaaj buu saa ku soo guurinaya masaladu marka waa masalo adag oo aan dhinac loo ridin sidaas daraaddeed waxaa fiican in taxadarka la qaato gaaladaasi guryaha joogaa iyagu waxay karsanayaan iyo waxay cunayaan ha cunaan laakiin yaan lagu kaalmaynin sidaasaad moodaa in culimmadu saasay u badan yihiin waana masalo khilaafkeedu xoog badan yahay wallahu aclam baaraka allahu fiikum jazaaka allahu khayran saa-iilka lixaad waxa uu leeyahay sheekh aadaanka salaada subax inuu mu-adinku ku dhawaaqo asalaatu khayru min annowm ma waajiba mise waa sunne
waa sunno say culimmadu badan yihiin waajib maaha hadduu ka tagana aadaanka soo celin maayo maxaa yeelay waxay ku soo aroortay axaadiista qaar ka mida sida xadiidka abu maxduura abu daawuud iyo keyrkii ay wariyeen ayay ku soo aroortay as-salaatu khayrun min annawm aadaanka hore in la gelinayo aadaanka hore ma waxaa laga wadaa ka salaada subax oo hore waxaa loo yidhi aqimaadii baa laba oo iyadana aadaan waa la dhahaa mise aadaanka hore ee waagu intuusan beriyin bay gelaysaa waa khilaaf bayna alfuqahaa axaadiista marka la fiiriyo daahirkeeda waxaa u dhow oo xoog badan aadaanka dambe in la geliyo ee waagu ku baryayo waxay khilaafsan tahay madhabka imaamu shaafici soo ma innaga waddankeena lagagama dhaqmo oo aadaanka horaa la geliyaa aadaanka hore asaga waxaa loogu talagalay liyarjica qaa'imakum waliyuuqida naa'imakum ruuxii jiifayna inuu kiciyo kii taagnaana wax yar inuu celiyo laakiin kan salaada loogu talagalay waa kan dambe marka adaan alawal waxaa loo yidhi bimacnaa aqimaadii ayaa haani ah بالنسبة للإقامة واي إقامتنا آذان ولا يدا ولكن النبي يقول لها مركو كهل لا يحلي هذا الدعاء كلا أقبله الدعاء بين الأذانين سما مركا أقيمات آذان كلا ودا آذان برلا المهم تاسي وماشي هذا لكن مسألة الصلاة خير من النوم واجبة وحيو بديهين إن سنتها لأن مثل حديث عبد الله بن زيد الريادي سي آذان كاللوجود شديه كما شرته maadaama xadiista qaar ka mid ay ka maran tahay qaarna ay sheegeen waxay leeyihiin marka waa mustaxab waa sunno ee waajib ma aha wallahu a'lam jazakallahu khayran wa ahsanallahu ilayk saailka toddobaad waxa uu leeyahay sheekh dhul baan ka ganacsadaa marba waqti ayaan hayaa haddana waan sii iibiyaa dhulka sidee baan sheekh uga saka bixinayaa su-aasha labaad uu ku soo darayna waxa weeye dhulka ma laga ganacsan karaa sheekh dhulka waa laga ganacsan karaa badeecada caadiga buu ka mid yahay ama dhis oo ka ganacso ama dhulkoo bannaan intaad milkida sii iibi badeecada laga ganacsadu ka mid yahay xalaasha ee la milkiyo taa waa midda labaad dhulka la milkiyo laba qaybood waaye in loo milkiyo lahaansho ama deegaan ama milki iska haysiya kayd iyo in loo milkiyo in laga ganacsado la rogrogo kan hore saka laguma laha laakiin kan dambe ee dhulka rogrogayso intaad iibiso aad sugayso inuu faa'iido kuu fuusho wadadana sii rogayso wadadana mid kale sii rogrogayso dhulkaasi wuxuu la mid yahay curuudu tijaara waaye waa alaabta ama badeecada ayuu la mid yahay oo la xugum yahay saka ku waajibaysa laba sharti bayna ugu waajibiyo dhulka marka la qiimeeyo inuu gaadho qadarkii iyo nisaabkii sakadu kaga waajibaysa xoolaha gaar ahaan lacaga shardiga labaadna waxa weeye inuu sanad u soo wareego marka sanad u soo wareego hadday xoolahaasi saka gaadhaan markastoo sanad u soo wareego waad qiimayni dhulka qiimaha markaa uu suuqa ka joogo aad ka qiimaynay markaad qiimaysana qiimahaasaad kaga sakaynay haddana sanad baa soo wareegay waad qiimaynay waad ka sakaynay waa sida alaabta dukaamada idiin taalloo kale waay alaabta dukaamada taalla soo sidaasoo kale maaha oo hadday saka gaadho sanadkiiba mar lagama sakeeyo dhulka ganacsigiisuna kaasoo kale waaye waa xuruudu tijaara waaye waa alaabta ganacsiga saasaa looga sakaynayaa wallahu aclam jazaaka allahu khayran wa axsan allahu ilayk saa'ilka sideedaad waxa uu leeyahay sheekh in lagu biiro baarlamaanka waddanka Kenya diintu maxay ka qabtaa waliba qof diinta yaqaana oo raba inuu hagaajiyo baarlamaanka Kenya wax ku khaas ma jiro ee baarlamaanada oo dhan baarlamaan sidiisaba gelitaankiisa baarlamaanada hadda jiraay kelimada horta baarlamaanku
iyo wuxuu qabtaba ma aha nidaam ka soo jeeda siyaasadii sharciga ahayd ee ummadda muslimka lahaan jirtay waa nidaam ka yimid gaalada ka yimid gaar ahaan reer galbeedka ka yimid kadibna la qaatay oo ummadihii mid jecel iyo mid necebba la qaatay bedelkiisa inaga waxaa inoogu jira diinteenna mabda'a shuurada wa amruhum shuura baynahum shuurada iyo majliska barlamaankuna isku mid ma aha shaqo iskuma laha barlamaanka marka sida dimuqraadiyadda reer galbeedka ka timid ay ugu talagaleen una jideeyeen baarlamaanku waa jiha tashriiciya waa jiha loogu talagalay inay wax jidayso laana dawladdu waa saddex qaybood qayb waa qayb wax jidaysa qaybna waa qayb fulisa qaybna waa qayb xukunta qaybi waa maxkamadaha qaybina waa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada iyo dawladda waa wajiha fulineed waaye qaybina waxa waa tashriici oo waa xukumkii waaye waa jiha tashriiciya oo waxbay jidaysaa baarlamaanku marka waa jiha tashriiciya saas daraadeed waxa la yidhahdaa golaha Soomaalidu waxay dhahaan markay turjumayaan golaha sharci dejinta soo ma dhahaan golaha sharci dejinta طيب inaga diinteena marka la yiraahdo sharci dejin yaa iska leh ya Allah ilaahi baa wax xalaaleeya wax xaraameeya wax diida wax ogolaada bini aadan ma laha hawsha iyada la madaxweyne ma leh wala baarlamaan ma leh wala wasiir ma leh xalaaleyn iyo xaraameyn ilaahi baa iska leh ala lahu al-khalqu wal-amr abuurka isaga leh amarkana isaga leh saas daraadeed baa quraanka ilaahay ku diiday hatta culimada loo diiday wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala allahi al-kadhib wa been abuurad ilaahay ay ku been abuurayso in ay ummadu samaysato cid xalaaleyn iyo xaraameyn u dajisoon alla ahayn ilaahay wuxuu ka soo qaaday inay shirki tahay am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah marka waa xaq khaalis oo ilaahay leeyahay xalaaleynta iyo xaraameynta saas daraadeed baa culimadii reer bani Israa'iil markay reer bani Israa'iil ay xalaaleynta iyo xaraameynta ku raaceen nabigu wuxuu yiri waad caabudeen markay soo degtay aayada ittakhadhu ahbaarahum wa ruhbaanahum arbaban min duuni Allah wadaadadoodii iyo culimadoodii baa waxay ka dhigteen rabbiyo alla ka sokow nin iyaga kamid ah nin baa istaagay rasuulka ilaahay soo islaam caadi wuxuu rasuulka ilaahayow maana rabbiyo ka dhiganin seen rabbiyo uga dhiganin markaasuu nabigu ku sallallahu alayhi wasallam soomayna wax idin xalaalayno meedan ku raaceen ها سومين إذن كحرامين إنه إذن كنا ميدان كراعين ها إذا ربي دقشته سو إنت أول ما ربي بات كدقتين ورا هذا حلالين يا حرامين كراعين مسألة ده مركب أباهني وحوي هرتا ما هي ده شقة برلمانات كلو قلت القل هذا الشراي وحويان ومتداوي بقى أرين ده سمرك أرين روح مسلم وإلهي يا آخر الرميسان وقيب كان نقون كريو حلالين يا حرامين معها هل كان كلا قاضو شرعي برلمان قد تشيل الله واحد مد دينت إلهي كهر إيمانية كإسقاء وحلالين يا حرامين هير كفري قال لي مقارية وحنا وح شريعة مجال كعفوي قال لي العفو وحوي ووحينا شريعة الدين وبني آدم كاللود داي اجتهادات كيس اللود داي waxa noocaas oo kala andimo inay ka dajiyaan taayada dhimale Soomaalka jidadka sida loo maraya magaaladu say u dhismayso dawladda muxuu ahaay imisa wasiir bay noqonaysaa sidee loo kala qaybinayaa waxyaalahan soo kordhay waxyaala nolosha lagu nadaaminayo waay isla markaana aan shariicadii ka hor iimaanaynin waay qaybta noocaas oo kala ah wixii marba maslaxa la bido in la go'aansado lagu socdaay dhimale laakiin haday timaado wixii shariicadu meel dhigtay
xalaalaynteedii xaaraamaynteeda baarlamaan ma laha ninkii galo hawshaa qayb ka noqdana yaa weylahu ya diintiisu waa bannaanka way waa arrin kufri iyo gaalnimo keenaysa waa qarsoodi ma leh taas laalaab ma leh taa waa mid markaa masaladaa ogaana kadib in uu ka qayb galo ruuxu ama loo doorto ama uu galo shakhsi ahaan ma bannaanta bis ma bannaana mas'aladaasay marka culimmadu kala qaadayaan waxay leeyihiin mas'alo hadda dhacday waay mas'aladu markay hadda mucaasir tahay oo xaaditiya naasilo cusub tahayna culimmada wakhtigaa jooga ay dhacday baa inta badan fahamkeeda iyo fiqigeeda loo raadiyaa tansiilka ay axkaamta saarayaanna ayagaa loo raadiyaa nuquul wadaadadii hore ay dheheen ama kuwa soo socda ay dhihi doonaan waxaa ka hoos bixi doona tasawurka mas'aladuna markaad xukumayso laba dhinac bay leedahay inaad horta fahanto xaqiiqadeeda marka labaadna inaad naskii iyo daliilkii heshood saarto oo masalada tansiilka la yidhaahdo waaye culimmada marka mucaasiriinta ee hadda noole muslimiinta ah majaamicdooda fiqiga fataawidooda jamaaciga si gooniya culimmada uga hadashay waxay kala qaadayaan shakhsiga iyo nidaamka baarlamaanka iyo arrinta loogu talagalay shakhsiga galaya haddii uu u socdo niyadiisu ay tahay wax shareecada ilaahay khilaafsanna inuusan jidaynin qaybna ka noqonin bal inuu ka dagaalamo wixii maslaxada ummadda ana uu meeshaa ka dagaalamo hagaajiyo diinta iyo ummadda iyo dalka wixii maslaxa ugu jirto inuu halkaa ka dagaalamo wixii shareecada ka hor imaanayana jidayntooda uu ka hor yimaado ka dagaalamo haddii uu niyad noocaasa ku galo ruuxaasi markaa culimmada qaar waxay waa waajib inuu galo sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah iyo culimo kale oo caana waxay leeyihiin waa waajib maxaa yeelay haddii la yidhahdo ha laga wada cararo yaa looga tegayaa ilaan wixii waa waxayna haystoo taagan waay khiyaar uma lihin inaan kala dirnana khiyaar uma lihin inaan baabi'inana khiyaar uma lihin waa taagan yaha waana na xukumaya markaasoo kale waxa weeyaan in la galo oo fasaadka la yareeyo oo maslaxada la kordhiyo oo lala dagaalamo wixii shareecada khilaafsan oon marna la waafaqin haddii lagaa bato meesheeda waay haddii cod lagaaga qaadood adigu ka dagaalanto intii tabartaada aha waad gaadhsiisay iqaamatulxujaad ugu yaraan samaysay macdira ilaa rabbikum waad samaysay intaa ka badanna ma kari karaysa ilaahayna addoonka wuxuu ku kallifay laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa ruuxii marka sidaasoo kale u taga meesha oo nidaamkan iyo wixii diinta ka hor imaanayna la dagaalamaya maslaxada ummadda iyo diinteeda iyo dalkeedana ku dagaalamayay wax shareecada khilaafsanna aan waafaqaynin halkaa ruuxii tagaay culimmada qaar waxay leeyihiin waa waajib in la galo saa loo galo qaar waxay leeyihiin ma ahe waa mustaxab qaar waxay leeyihiin waa jaa-is qaar waxay leeyihiin ma bannaana sida sheekh ibnu baaz iyo sheekh albani oo kale laakiin haddayna qabsato siday u kala roon yihiin baan u kala dooranaynaa say u kala roon yihiin ilaa heer waxaa layna gaadhsiiyey masaladu masaalix iyo mafaasid bay u khuduuciye ilaa heer waxaa layna gaadhsiiyey xataa gaala hadday isqabato inaan gaalada kala dooran karno khiyaar kalena uusan noo furnayn fii suurati aruum bilowgeeda markuu ilaahay ka hadlaya muxuu yidhi gulibat iruumu fii adna alardi wahum min bacdi galabihim sayaglibuun fii bidci siniin lilahi alamru min qablu wamin bacdu wayowmaidin yafraxu lmu'minuuna binasri illaah yaa ishaya laba dowladood oo gaalo ah waxaa ishaya furus iyo ruum furus waa ahlulkitaab ruumna maxaanu dhihi lahaa furus waa dabcaabud ruumna waa ahlulkitaab ya ma toosna oo ilaahay bay ilmo u sheegaanoo waa krishtankan oo kale waa krishtan waay laakiin krishtan iyo dabcaabud markay isqabtaan alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala guusha ay ruum ka guulaysan doonto furus oo dabcaabud ah yay mu'miniinta nebi maxamed la socda ku farxi doonaan laba gaaloo kale guulaystay baan mid guushiisa ku farxaynaa sababtu maxay tahay wuu nooga sokeeyaa ilaa heerkaasay muslimiintu gaadhayaan xataa laba gaal inay kala doortaan duruuftaa keenaysa marna khiyaaraad baa kuu furan marna khiyaar ma lihi saas daraaddeed baa culimmada muslimiinta maanta jooga waxay fatwoodaan waddamada gaalada ee muslimiinta ay ku nool muslimiinta laga tiro badan yahay haddii laba gaal ay ku tartamayaan waddanka hoggaankiisa
midka u roon muslimiinta iyo diintooda iyo dalkooda iyo maslaxadooda ayaa la dooran asaa la dooranaa leanna khiyaar kale kuuma fura markaasi waxa weeye uun sharka fududee waa laba shar baa isu kaa haystee labada shar midka fudud qaado ka culusna ku riix soo maarat marka meeshaasay gelaysa mas'aladu marka waa masalatu almasaalix waalmafaasid markii laga tago qodobka ajidaynta oo asagu aan ka soo hadallay oo aan hadal ku jirin laakiin masalada gelitaanka iyo ruuxu wuxuu meesha ka qabanayo iyo inuu shaqo wanaagsan meesha ka qabtaay way ka duwan tahay intaan baadhay masalada ama akhrinay hal ninoo culimo oo muctabar ah oo yidhi gelitaanka mujarrad uu ruuxu galay baa gaalnimo ah ama inuu dhex fadhiistay baa gaalnimo ah ama in la doortay keligeed baa gaalnimo ah culimada muctamiriinta nin ka midoo yidhi ma arkin laakiin way kala qaadayaan masalada tashriicana gooni bay u dhigayaan mas'alada ka qaylgalkana waxay u kala qaadayaan ruuxa iyo waxa uu qabanayo iyo wuxuu ku talagashan yahay iyo niyadiisa iyo markuu meesha joogaayey waxa uu u taagan yahay inuu ruuxu keliya mushahaar raadsado uu meesha ka raadsado ama magac ka raadsado ama mushahaar ka raadsado ma ah laakiin mid ay culimmadu ka hadlayaan waxa way waa ruux ku qasbanaaday inuu meesha u galo inuu diintiisa difaaco maslaxadiisa inuu difaaco wixii diinta ka hor jeedan ummadda danteeda ahayna inuu ka dagaalamo kaasi waxa weeyaan bayna alwujuub waalistixbaab waalibaaxa ay culimmadu u dhexeeyaan wallahu aclam جزاه الله خيرا وبارك الله فيه جزاك الله خير شيخ بعد ما تنتهي سائلك سقالات وحوليه يا شيخ نبان وشقيا ننكاس وحوليه لبا تكان مid anaa ka shaqeeya midna dad kale ayaa ka shaqeeya ka kale waxa lagu gadaa waxyaabo xaraan ah waxaan ka cabsaday sheekh in ninkaas inta uu lacagta isku daro oo lacagta labada dukaan ka soo baxaysa uu isku daro kadibna anaga uu dib noogu soo celiyo mushahaar ahaan marka arrinkaas xukunkeesu muxuu noqonayaa sheekh dib ma laha adiga haddii shaqadaadu ay xalaal tahay shaqada dukaanka ka hayso haddaad si saxa u hayso dhididkaaga aada cunayso lacagta lagu siinayana aadan garanaynin ma tii xalaasha ahayd baa mise waa tii xaaraanta ahayd dhib ma laha gaar ahaan markay xalaashu badan tahay oo xaaraanta nisbadeedu yar tahay dhib ma laha mushaharkaaga qaado shaqadana hagaaji wallahu aclam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك طبناد وحوليه يا شيخ waxaan joognaa wadanka South Africa waxaan la tukanaa nimanka hindida ah nimankaas waxa ay dib u dhigaan salaada subax salaada maghribna hore ayay u soo dhigaan markaan weydiinay waxay nagu dhaheen daliil ayaan u haynaa arrinkaas markaa sheekh arrinkaasi wax daliil ah ma leeyahay labada mas'alo aan kala qaadno midda ku saabsan maghribka in la hormariyo arrintaasi ma jirto madhabka xanafiguna ma qabo madhabka xanafiga ah madaahibta kulub kala mid yahay waqtiga maghribku soo galo inuu yahay waqtiga qoraxdu dhacday saas daraadeed waxaa laga yaabaa inuu walaalku ismoodsiiyey inay maghribka soo hormariyeen oo qoraxda dhicitaankeeda ka soo hormariyeen mana dhacdo madaahibta afartu waxay isku waafaqsan yihiin salaada maghribku waxay gashaa markay qoraxdu dhacdo taa waa qodobka labaad oo ku saabsan salaada subax bay dib dhigaan waa sax laba salaadoodba way dib dhigaan salaada casarka way dib dhigaan salaada subaxna way dib dhigaan salaada subax waxay u dib dhigaan xadiid bay cuskadaan uu nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam asfiruu bis-subhi fa innahu a'zam li ujurikum sunankii wariyeen yacni waabarka caddeeya ajirkiina kaasaa u weynay marka jumhuurtu waxay ka fahmeen xadiidka culimada kale madaahibta kale waxay ka fahmeen xadiidka waxaa laga wadaa bay leeyihiin salaada subax qiraa'adeeda dheereeya ilaa waagu caddaado ayaguna waxay ka fahmeen salaada subax dib u dhiga ilaa waagu caddaado oo markaa gala
xadiidkaasoo sugan baa marka fahamkiisa lagu kala tagsan yahay sidaas daraaddeed markay salaada subax tukanayaan iyo qoraxda soo bixitaankeeda waqti yar baa u dhaxeeya 20 daqiiqo miyaa mise marmarka qaarkood 15 daqiiqo waqti yar baa u dhaxeeya taa marka waxa way xadiiskaas daliishadaan haddii aad weydiisay daliil miyay leedahay kaasay daliishadaan laakiin istidlaalku sax ma laakiin waa madhab fiqhi oo jira waa ummad badan ay qaadatay oo ummadan taqriiban shibir qaar al-hindiya oo dhul muslimiinta inta badan yihiinba muslimiinta badankood waa Hindiya Pakistan iyo Bangladesh inta marka la isku daro muslimiinta badankood waa marka madhabka Xanafiga haystaan Turkida marka lagu daran iska badaa marka madhab ahaan masaladu sidaas waaye maxay u xoog badan tahay haday tahayna sida xoog badan ahadiithda saxiixaynka qeyrkood ku sugan ay tilmaamayaan nabigu salaada subax wuxuu tukan jiray kaanu yusalli bi ghalas mugdi buu ku tukan jiray ilaa hore markay saa u dilaacada waa gali jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam ila salaada uu ka baxo mar labada ruux ee iskara fadhiya ay isgaranayaan oo wajiga ruuxa garanaysa uu salaada ka bixi jiray sallallahu alayhi wasallam طبعا qiraa'ada waa dheereen jiray 60 ilaa 100 ayadood nabiga sallallahu alayhi wasallam qiraa'ada salaada subax waa dheereen jiray marka masaladaas sidaas way maghribka ma dib dhigaan laakiin salaada casarka way dib dhigaan wallahu a'lam jazakallahu khayran wa barakallahu fiik saailka koob iyo tobnaad waxa uu leeyahay sheekh waxaan mehersaday gabadh meherkii ka bacdi ayay gabadhii waxay ii sheegtay inay qabto xanuun xun oo TB ah yada iyo reerkooduba way ii qariyeen markii hore marka sheekh guurkaas khiyaamadu ku jiro ma ansaxaya TB da Soomaalidu cuqdad bay ka qabtaa laakiin waa cudur la daaweyn karo waa horu dadka dhameyn jiray laakiin hadda cudurrada daawada loo helay kamid oo waliba si fudud loo daaweeyo marka haddii ruuxu cudurrada faafa qabo ama cudur halis qabo cidda la mucaamaloonaysa rag iyo dumarku dooni ha ahaadee guur ka raba waa inuu u sheego haddaad nin tahay waa inaad warka cadayso dadka waxba u qarin haddaad dumar tahayna waxaad qabto u sheeg cidda guurka rabta haddii kale waa qish iyo khiyaano waa waxyaalaha cuyuubta ah ee ruuxa khiyaarkiisu isu bedeli karo oo hadduu kugu ogaadaba uu go'aankiisa bedeli karo haddii aad qabto waa inaadan ka qarinin laana nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man ghasha falaysa minna ruuxi ceeb qariya naga mid ma qishku waa inaad dadka wax u qariso ama badaacadaada ama naftaada markuu ka hadlayay labadii ruuxi wax kala iibsanaya mucaamaloonayna nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما هذي رون يسوع شيئان واحد شرنا يسوع عديان بيع هذا الله بركية هذي بين يسوع شيئان أما واحد شر إسكقريانا بيع هذا بركة دي سال بابية مركب بيع واحد كم يمسن إسلام تقول سنيس badeecadi haday ku anfici weydo banaanka ka joogta laakiin islaanta guriga ku soo gashay sariirta kula jiifta wixii ka yimaad soo gama cusla marka in la khiyaamo ma hadii ay gabadhu xanuun qabto xanuunada musminka kamida gaar ahaan kuwa gudba in loo qariyo ninka waa khalad inuu ninku gabadha u qariyana haweentu guursanayana waa khalad haday soo baxdana waa khiyaano haday soo baxdana waa khiyaano oo dib laga ay ka cadaato khiyaano la sameeyay waaye ninkaasina xaq wuxuu u leeyahay inuu guurka ka baxo wixii kharash ka baxayna waa in loo celiyo laana waa la khiyaamay Soomaa wixii kharash ka baxay waa in loo celiyo wallahu a'lam jazakallahu khayran wa barakallahu fiik saailka 12aad waxa uu leeyahay sheekh qalal ayaan qabaa marka aan gaajo dareemo xanuunkaasi waa ay qabtaa lacag aan fidiyo iskaga bixiyana ma haysto
wixii yaraa ee aan helana carruurta aniga iyo carruurta nagama badna markaa sheekh maxaan sameeyaa oo aan soonkaygii ka sameeyaa su-aasha kusii xigta isla isagu uu soo qoray waxaa weeye sheekh salaada marka aan u taaganahay marmarka qaar oo xanuunkaasi qabto waxa aan dhibayaa dadkii waxbana iskama ogi markaa sheekh fadhi ma ku tukan karaa midda hore fidyada haddaad kari weydo haddaad soonkiina kari weydo raashinkii aada bixin lahaydna aada awood u weydo waxba laguguma laha ya laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha ilaahay wuxuu kugu kalifi waa wuxuu ku siiyey un hadduusan ku siininba muxuu kugu kalifi ya ilan ilaahay addoonkiisa wuxuusan kari karin ma saaree soomi kari waa oo soonkii tabar baa u diiday raashiin hadduu bixin lahaana maba haysto marka maxaa lagu eedi danahaaga iska qabso waxba laguguma leh masalada labaad oo ahayd ruuxa qalalka qaba isaga islagii oo dhacaya ama dadka dhibaya haddiiba aada istaagi karto ruux istaagi karo fadhi kuma tukan karo laanna istaagu salaadaha waajibka waa rukni waa tiir ka mida salaadaha tiirarka salaada la-aantiina salaadu ma asaxayso allahuma ruux kaa istaagi kari waayo mooye salli qaa'iman buu nabi sal lla alay slam adoo taagan tuko haddaad kari fain lam tastadic faqaacidan haddaad taagnidii kari weydo fadhi ku tuko haddaad fadhigii kari weydo adoo jiifa tuko marka fadhi taagnida waxaad uga tegi kartaa un inaad kari weydo amaa dadkii baan dhibayaa haddaad dadka dhibayso gooni u istaag way kuu bannaan tahay inaad gooni u istaagto saan dadka u dhibin way kuu bannaan tahay waxaa kaloo kuu furan marka xanuunku ku qabto ilaan siwaash sida ku qoran marmar buu qabtaa marka xanuunku ku qabto dareento markaasoo kaleeto waad fadhiisan karta laakiin xanuun baa marmar i qabta oo dadkan ku dhibi fadhi isaga tuko sax maa markay timaado daruuradu markay timaado ayay xukunkeeda qaadataa duruuftu markay ku qabato bay xukunkeeda qaadanay laakiin intaysan ku qabanin waxaa waajib kugu waa salaad inaad taagni ku tukato wallahu aclam baarak allahu fiik waaxsan allahu ilayk saa'ilka 14aad waxa uu leeyahay sheekh ragcadaha salaada taraawiixda ma laga kordhin karaa 11 ragcadood waa laga kordhin karaa intii la doonaa la tukan karaa nabigeenu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam salaatu alleyli mathnaa mathnaa salaada habeenkii waa laba ragcadood fa idaa khashiya axadukum subx hadduu midkiin waabarka ka baqo suu u tukanaya caaw dhan laba u waday waabarka markuu ka baqo ha witriyo culimadu waxay ka qaateen salaada habeenku inaysan xad lahayn salaada taraawiixduna waa salaadii habeenkii waay laba mid baa fiican bay dhahaan culimadu hadduu ruuxu qiraa'ada dheereeyo oo sidii nabigeenu sal alla alay wasalam uu qiraa'ada u dheerayn jiray inuu ragcadaha 11 ama 13 ka dhigo laakiin uu qur-aanka iyo taagnida dheereeyo xadiidkii caaisha laga fahmayaa na ay tiri kaana yusalli 4 falaa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna ثuma yusalli 4 falaa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna ثuma yusalli 3 11 saasuu ku tukan jiray riwaayada qaar 13 buu tukan jiray laakiin culimo badan oo salafka ka mid ah ijmaac waxay soo goorinayaan tiradaasi inayna salaada habeenkii taraawiixdu ku xadidnayn waxaana laga qaadanayaa madaahibta fiqhiga meeshay mareen مثل الإمام الشافعي iyo xanaabilada iyo waxay marayaan 13 ragcadood 20 salaadii leelkii iyo 3 witira Soomaa masaajideena qaar kamidana waa saasa looga tukadaaba qaar waxay qabaan 30 iyo ziyaado
qaar waxay qabaan sirada in ka badan laakiin aqwaashii salafka laga heli maayo intaan garanayo madhab qaba 11 lagama siyaadin karo oo haddii laga siyaadiyo waa bidco ama shariicadii baa la khilaafay axad culimaday hore ka mid oo soo guuriya kama hayo allahu aclam cidii hayso way noo faa'iideyn kartaa saas daraadeed bay in badan ijmaac soo guurinayaan salaada habeenku inayna xad go'an lahayn marka kullun ala shaakilati wa adiga haddaad 30 tukan iyo haddaad 40 ka dhigi haddaad xataa 100 gaarsiin iyo haddaad 11 tukan iyo haddaad 5 tukan iyo haddaad 3 ku gaabsan iyo في الأمر ساعة دمال إن شاء الله تعالى نعم جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك سائلك شان يتبناد وحولي يا شيخ قبل لح بلاد أور أهله مع فوري كرتا هدي أي المها أبقضه محاسن لقربا هدي آني سومين حديث نسكو النبي قول صلى الله عليه وسلم إلهي صونك wuxuu ka dajiyay haweeneyda uur kale mid nuujinaysa iyo ruuxa musaafirka ee socotada inay iska afuri karto hadal male maxaa gadaal laga rabaa say u badan yihiin culimadu qalla laga rabaa qiyaasan ala al-musaafir ama mariidki kii xanuunsanay baa looga qiyaas qaadana waxa la leeyahay ha qallayso goortay fursad hesho ha qallayso ama nafaheeda ha u baqdo ha u afurto ama ilmaha ha u baqdo تنوجينيسا إيتا أور كلا لوضبا ماشا واحد كجرن كرتان ممكن شريعة دينا وشريعة التيسير شريعة نحريسات واي شريعة ظروف تبني آدم كقو إيماني ستحقل نيسوا شريعة الله قلت لك قال ما هتتك إني عذاب توي دبتما ما أنزلنا عليك القرآن إيه لتشقى قرآن كاللقو مسودة جنين إنا ترفادو أحكامتي تكاليف تلوجو متقولين ضدك الله دبوا لكن واحد لوجو تلاقي تكاليف أصل كيدون فضوط هذي ميلها قاركود يرعد كاتنا ولا سيف الضينا ترى كلا كم بده وهي هذا مركي نوتشين يسو ويتشل حسن تهاي بني آذنا وكد النولي تبرير صوما مركي أور كلا هذا هاي ويتشل حسن تهاي بني آذنا دعان كيدو كنولي مركزه كل الرخصة والشرع وين فضوضيسو المشقة تجلب التيسير فضوضين وين مركز لا جعل عليكم في الدين من حرج رخصة إسكا قادنا يقولوا أفريان كذلك دم مركي أي فرصة هلان ويقلينا يا المعلمي كتجي والله أعلم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا سائلك اللي هي تبناد وحولي يا شيخ ما بنانت هاي إن في ديده لو هذا بحيه المر سيدا إن لا بحيه ضمات كبشة رمضان إمسا أيا سفي عن إن لقدقو ويبنات هاي إن هذا هالمر وضع بحيصه بشا آخر كذا وحانا سيدا سميه كما نسوغنت هاي كما في صحيح البخاري صحابي النبي أن خادم كيساها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيا مركو دقوغي وداء النقضي وصونكي كريواي ويسكا أفوري جري بشا آخر كذا مساكين تؤسوغو يارو هالمر راشين سينجري مركوي برنامجها والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. سائلك تطبيع تبناد وحولي يا شيخ. هدي قفل قالوا أما واحد شركي سكمد لقد جراه. سيدا إنك اللي حماتي لقى بحيي أما دق لقد جراه. أنت لقوي شيخ. ميا لآسيا مسكشن كايا لقدرية. هذا الروح النول ياهي. الروح النول حبنيه سقار كم إذا الله تشرو إن لا آسو ويفي عنته وبين آدم كإلهي باكرامي لكن لقد تكن مايو لنا دقي مايو إن لا آسنا ويفي عنته مرة لقد وضوبي كدي من القد بالغردي تكريم كبين آدم كإلهي كرامي بوحا كم إذا إن أنشركي سو وسن بنانك أما ورابه كعنين أما أوصل بنانك كده يعمل. هذه مركب الروح نول شركة اللي جوا يقيب كم إذا صار ولا رقمية لكن لازم ما وحوات شبينا يمشروا. فوق هذا يمذاهبتنا وحي إليهم ومستحب وصدق في عنه إن آدم ككرامة دي سين لا إله إلا إن لا أسطره لكن لقونا تكن مايو لا نرقي مايو
waxaa ka duwan ruux la dilay ama dhintay ama waraaba cunay oo tegay haddii jidhkiisii qayb ka mida la helo kaa maxaa la samaynaa kaa way ku kala tegayaanoo fuqahada qaarna waxay leeyihiin ha la kanfo hana lagu tukado ha la aaso qaarna waxay leeyihin xanafiyadoo kale ma ahee hadduu jidhkii markii 3 meelood loo dhigay intiisii badnayd uusan ahayn in yar hadduu yahay la iska aaso adugu warkaasi way kala tegayaan laakiin hadduu ruuxii nool yahay oo dhakhtar la geeyo oo lagaga gooyey kaa waa la iska aasayaa sida fiican laazimna maaha wallahu aclam أحسن الله إليك وبارك الله فيك شيخنا سائلك سجدي طبناد وحولي يا شيخ مركا أن ويسا قادنا يو بيها وانسكتفا لكن قيان أيان دريما وحان اسكدا دعيا إن بيا أفكيك كتيران إلى مدو أيان عندوف تطفا سيانوه بصدو إن آن بيا يوهرين لكن مركا قار هلمام أيا يقول دعا أنيقو وحلقي أيان براروغا وين يقصوا نغنغطي waan ogahay inaan arintaas soonku ku jabaynin hadii aan kas loo yeelin laakiin waxaan isdhahaa waad ka mashquulshay oo maadan taxadarin shalayto badan ayaana gadaal iga timaada marka soonkaygu muxuu noqonayaa sheekh marka waswaaska la dagaalan biyaha haddaad ku luqluqato ood iska tufto intaa wixii ka dambeeya afkaaga wixii ku hadhay waa candhuuftaadii waa meel lagu yidhi luqluqda waa layna yidhi oo cumar miyuu ahaa markuu nabiga weydiiyey sal alay wasalam taabashada miyaa ahayd mise dhunkashada dumarka wuxuu ku yidhi ka warran haddaad luqluqato adoo sooman dhib male buu yidhi waa taasoo kale buu yidhi marka luqluqashada haddii lagu oggolaaday ood biyihii iska tuftay meel shareecada ay kaga taalla ma jirto maanta dhan uun candhuufta iska soo tuf iyo iska ingajiyo afka ingaji meel ay kaga taalla ma jirto marka waswaas baa ku galay shaydaankuna meelahaas dadka wuu ka soo galaa meelaha aad isleedahay aad u taxadar haddaad isdhahdaba waa inaad dhanka kale taxadar muujiso waay aad u taxadar oo kaadida iska ingaji oo iska istijada ku dadaal oo aad isu maartay baalka jiid oo ku rafaado halka uu ka soo geli salaada adkee haddaad dhahdo oo shadka aad u adkee at-tahiyyatu maanta aad la qalafto ayadana uu ka soo geli marka waxa loo baahan yahay adkeynta faraha badan waa madkhal min madaakhil ash-shaytaan waa meelaha bini aadan ka waswaasiyo ha isku gelin marka bal intaad la dagaalami karto la dagaalan ninkii muxuu ahay qoyaanka sheegtay inuu xubin ka socdo nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam muxuu ahay markaad istijooto meesha xubinka ku aadan biyo ku sayd si aad u tiraahdo hadhow markuu ku yiraahdo waxba ka yimid warmay waa biyahan ku daadiyay maxaa la xidhayaa baabka waswaaska la xidhayaa laana waswaasku waa cudur dadka qaarkood wuxuu gaarsiyaa heer waali junuun ilaa culimadu ay yiraahdaan waswaaska xulayskiisu ku dhacay xataa naagtu kama furanto laana waa nooc waali waay hadarkiisa qaarkood waxay ku leeyihiin sheekh hadalkii iga soo baxaba war hebelow iska waran haddaan dhaho naagtayda inaan furay baan moodi war seeta wixii iga soo baxaba furin baan moodi marka heerkaas uu gaadhi beelu ka galaba waa halis waxa uu daran midka xaqiidada ka gala nabiguna waa ka hadlay sallallahu alayhi wasallam marka hasi aad adkaynin biyaha hadaba tad ku luqatay iska tufto bas waay ka soco wallahu a'lam بارك الله فيك وجزاك الله خيرا سائلك سغالية تبناد وحاولي يا شيخ سيجاركو صون كما جبيا dadka qaar ayaa ku dooda in aanu sigaarku soonka jabinaynin oo dhaha waa sida hawada afkaaga galaysa mar kasta oo kale marka sheekh nooca xukunka sigaarka horta waxa ka horeysay sigaarku waa xaraan ama soomano ama soomanaanin sigaarka isticmaalkiisa iyo ka ganacsigiisu waa xaraan qatci ah soonkana wuu jabin culimada jamaahiirtooduna waxay qabaan inuu soonka jabinayo sababtu waxa weeye waa shay jurmi leh waa shay qara leh
oo ishu qabanayso la taaban karo oo calooshaada u gudbay waay adiga qasadkaagana aad ku geliso oo ku cabtay hawadan caadigeed qaadanayso khiyaarba ma lihidba maada cabay marka waa waxaad cabayso waay quraanka iyo sunnaduna waxay sheegeen wixii la cabo inuu jabinayo soonka jabinayo hadda markaa u diin maxaa nin sigaar cabay uu cabay cabitaan sooma cabitaan waay waa cabtay ruux wax cabayna soonkiisu jab hawada caadiga jirka galaysiyo isku mid ma aha iyo sigaarku isku mid ma waa shay jurmi leh shayga jurmiga leh hadaad liqdana ama shay ku dhibaya ha noqdo ama shay jirka dheef siinaya ha noqdee labaduba soonka way jabinayaan dhagax yar hadda intaad qaado haddaad liqdo soonkaagu waa jabaya nafcina ma leh sooma jirka waxba kuma kordhinayo waa ku dhibaya marka laazimaha waxaad liqaysay soonka jabinaya inuu jirka dheefiyo laazimaha xataa hadduu sun jirka dhibaya oo aad liqdo ama aad cabto soonka waa jabinaya jamaahiir cilmina sidaasay qabaan culimadu waxaa u dheer haddana maca dalika waa caasi soonkiina jabiyey xaaraanna cunay xaaraan cabay wallahu aclam بارك الله فيك وجزاك الله خيرا سائلك لباتناد وحاول لي شيخ قدك نبيgu waa ku ina yiri sidaaya marka hadii la taaban karo qadka maxaa laga taaban karaa dharar iyo balacba nabigu sallallahu alayhi wasallam dhowr xadiis baa ku soo aroortay oo amrayo ufu liha wa firu liha kulligoodna macnahoodu wax weeyaan waa badiya ama sidaaya dheereeya ma lafdiga xadiista ku soo aroortay aan laga fahmin macna khalad dheereeya ma laakiin badiya waa mas'aladaasi markaynu u noqono amarka nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga sidaas daraad waxa soo aroortay inuu kathal lihya kathigu waa badnida timuhu inay badan yihiin inay dheer yihiin way kala yihiin sooma inay badan yihiin oo timuhu isku cuban yihiin iyo inay khafiif yihiin iyo waxa kala duwan way dheer yihiin nabiga midda lagu tilmaamay wax way garkiisu timo badnaa ilaa saxaabada gadaal markay ka joogaan ay qiraa'adiisa ay ku garan jireen dhaqdhaqaaqa garkiisa rasuulka sallallahu alayhi wasallam alfaadaasi hadday ka sugnaatay oo ay sugan tahay macnaheedii fahamkeeda ayaa markaa kadib saxaabadii iyo taabiciintii ayaa u soo gudubtay maxay ka fahmeen sayso ula dhaqmeen mid culimada way isku waafaqsan yihiin garhka in la xiiro kulligiiba salka laga maro waa xaaraan alimaam ibn xasmi baa wuxuu soo guurinayaa ijmaac inay xaaraan tahay ayna tahay muthla muthlada waxaa la yidhaahdaa waa suura xumayn waay taa waa xiiridda salka laga maray taa marka laga yimaado gaabinta loo yimaado gaabinta waxaa ka sugan saxaabada qaar ka mida iyo taabiciintii in badan oo ka mida inay gaabintu bannaan tahay cabdullaahi ibnu cumar oo ka mida xadiidka ragga wariyey xadiidka dhahaya awfu liha muxuu ahaayey alfaada mid ka mida wariyey bukhaari sida ku sugan waxaa ka sugan inuu dhihi jiray cumrada iyo xajka markuu aado inuu garhka qaban jiray kadibna inta dheeraadka inuu goyn jiray cabdullaahi ibnu cabbaas waxaa ka sugan waliyaqduu tafathahum xajkii cumrada markay aadaan dadku tafadka waxaa ka mida buu yihi garhka wax laga gooyo ardadiisii qaar ka midana way ka sugantay jaabir sanad xasana waxaa kaga soo arooray subaalada waxaa la yidhaahdaa cirad bahashana waa la yidhahdaa shaarubta garhkana waa la yidhahdaa lakiin inuu garhkooda u badan tahay inaan gaabin jirin saxaabadii buu ka warramaya marka waxbay ka qaadi jireen taabiciinta marka la yidhaahdo rag badan oo taabiciintii ka mid ah fatwoon jiray in garhka la gaabin karayo oo la sisimi karayo waxaa ka mid a maalan طاووس ibnu kaysaan caalimkii reer yamaneed taabiciga ahaa waxaa ka mid a caطaa ibn abi rabax caalimkii reer maka waxaa ka mid a qaasim ibn moxamed reer madiina xasan albasri iyo moxamed ibnu siriin reer basra waa raggii waagaa looga dambeeyey cilmiga looga dambeeyey waay
kulligood waxaa ka sugan biasaaniida sixaax ama xasan ah inay dhihi jireen garhka waa la gaabin karaa. a'imada madaahibta marka la yidhaahdo waxay isku raacsan yihiin gaabintu inaysan dhib lahayn. allahuma shaaficiyadaa karaahaysatay fi hayri muslim, ayaga laftooda xaaraan way mayna dhihin soomaalit. marka masaladu waynu kala qaadiyo masalada gaabinta iyo masalada xiiridda. xiiriddu ma bannaana, wajhi daciif oo shaaficiya ku jiro karaahaystay, laakiin madhabka dhexdiisa daciif ku ah. ibnu xasmina ijmaacaa soo guurinaya. laakiin gaabinta oo qaarna ay yidhaahdeen xaj iyo cumro marka la aaday khaas ku tahay, qaarna ay yidhaahdeen maya way iska furan tahay, mar kalena ay kala qaadeen oo yidhaahdeen wixii uun qabashada ka siyaadsan baa la goyn karaa, qaarna ay yidhaahdeen maya kuma xidhna. taasi waxa weeye waa khilaaf. sida loo badan yahayna waxa weeye inaysan dhib lahayn gaabinta, haddayna gaabin zaa'id ah oo xiiridoo kale ah haddayna ahayn. taasi xiiridday la xugum noqonaysa. laakiin gaabinta in la sisimo oo xabadda fallaagadaa la gooyo, bal culimmada qaar ka mid a waxay leeyihiin garhku inuu iska dheeraado oo faraha laga qaado. waxay leeyihiin waa nooc, waxay leeyihiin muxuu ahay wixii la dhihi jiray ee shuhro oo kale ah. shuhra yani waxa weeyaan indhuhu soo jiidanaya, ruuxii buu dad ka dhex saaraya, maro dadka kaa dhex saaraysa iyo yani waxa weeye labis dad kaa dhex saarahaya iyo oo dadkiiba aad gooni laguu fiirinahayana ma bannaanay dhahay. marka masaladu waa masalo noocaasa. way iska bannaan tahay wixii xuduuddaas oo xiirid ka sokeeya ama wixii xiiridda aan ku dhoweyn oo qurqurxin iyo sisimid iyo xabadda fallaagadoo la gooyay iyo laa ba'as, dhib ma laha. wallahu aclam. ka bixin axaadiista nebigu uu leeyahy sal alla alayh wasalam wafiru lixaa iyo ucfu lixaa iyo waxay leeyihiin marka la xaqiijiyo alfaadda iyada ah dheereeya ma aha. waa mid aan hormariyey waay. alfaaddaasi dheereeya ma aha ee badiya waay. badiya badinta iyo dheerayntuna way kala duwan tahay. midda labaad weeyaane axaadiistaasi hadday macnaheedu tahay ha dheeraynina, saxaabada iyo taabiciintu macnahaasay ka fahmi lahaayeen, sidaas daraaddeedna xaaraan bay ka dhigi lahaayeen. marka fahamkii salafkaa sidaas, dhaqankii salafkaa sidaas, saasaan marka leenahay wax dhib ma laha. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran wa axsan allahu ilayk. ilaahay subxaanahu watacaala sheekha waxaynu uga baryaynaa inuu ka abaalmariyo cilmiga badan ee uu inoo faa'iideeyey iyo wakhtigiisa uu inoo soo huray. ilaahay subxaanahu watacaala carabka iyo caqliga iyo cuudka iyo cuduudda iyo caafimaadka iyo carruurtaba allah ugu barakeeyo. intaa kadib waxaan iclaaminaynaa berri insha allahu tacaala waa axada barnaamijkeennii fatwadu ma jiro. waxaa beddelkeedii inoo geli doonta xaflad aad u qiimo badan oo sheekhu uu ijaaso ku siin doono ardadii tafsiirka qur-aanka kariimka ahaa dhammaysay oo 2 dafcadood ah. insha allahu tacaala berri bacda alcasarka xafladdaas weyn ayaynu ka wada qayb geli doonaa insha allahu tacaala. fatwadeenna ama fadhigeenna shanaad waxau noqon doonaa maalinka isniinta ee berri mooye berri dambe insha allahu tacaala. waa inoo iyo berri iyo xafladdaas aynu soo wada camirno. sal allahu ala nabiyina maxamed wala alihi wasaxbihi ajmaciin wabillahi tawfiiq.